xumeeyey baan garaa guur been la galeen haddana Axmed uu u dagaalamay uu istaagan xasuustaa oo waliba arrimo ma aragta bulshada ah dhaxdeeda Axmed askari camal ma shaqeynaynin runtii Axmed marka la fiiriyo waxyaabaha uu qabanay waxay ahaayeen waxyaabo ma aragta annaga aan u baahanahay Soomaalinimo u shaqeynay waxyaabaha qaar biyoon wuxuu ahaa asaga wixii shaqadii loogu talagalay shaqo ka badan u hayay xaqiiqdii marka Soomaaliyeed qabyaalada iska dhaafa maalin walbana kiina ma aragta idinka waxa ah lala baxo ree hebel idinkoo isku haysaan saa loo soo siibto marka anigu kulli waxaan dhihi lahaa Axmed qolal badan oo laga soo furtaan arkay qolal badan oo qabyaalad loo rogaan arkay Axmed qabyaalada laga daayo ninkii ma aragtay wax cad oo sax ahaayo tuugan loo yeelayo anigu garan maayo fikradeena ka hadlo badan ku sugay abo fikradu walaal waan ka degaya waan soo gaabinaya ninkii haayo anaga wada degayna wadinaade qofkii cadeen ku haysta Axmed waxaas uu yeelay anigu yeelay qof kale ha imaado Axmed waa joogaa wuu imaanaya Axmed ha imaado hadda waxaas oo cadaalad darro ugu sameeyay laakiin hooya oysiyo hooya kan yeeshiyo war hooyooyinka shabaab ayaga dhalay xaqiiqda runta taas weey shabaab hooya dhashay guriga ka soo siidaynaysa waxa weey guriga ka soo quraacanaya cunta loo soo karinaya magaaladana gaal leeyahay qasal leeyahay hooya rabta male inuu cunugeeda wax qaso laakiin waxa weey cuntada maxay u siinaysaa may qabato cunuga ma arta dambiilaha ee wadada taagan haday ooynayso marka hore may cunugeeda qabsato war waxa weey wadanka waxa weey waa loo talinaya qofkii dib sameeyana madaxa la jabinaya wali wa Axmed ma ahna 10 Axmed soo baxaysa xaqiiqdi hal Axmed ma 10 soo baxaysaas gacan birnima ninkaan Soomaali ku qabanina waxa weey sidan uma ahaanaysa ay xaaladan maanta taagan uma taagnaanaysa hada duu meesha ka baxmo ogtay sidaad inay ku soo noqonayso warma caadi iska dhiga hadii kale ku yahay idinka adeegato inta saanidin leeyahay assalaamu calaykum wa calaykum salaam walaal soo dhawo ku soco hodanay okay horta dhamaan waan salaamo qof walba fikradiisu meeshan ka dhiidan horta Axmed Rashiid wax waa qabtay oo qof diidan ma laha soo in qof kasta uu garanayo taariikhdiisa laakiin aniga kollay mid baan qabaa mid waa ku diidanahay midna waa ku raacsanahay midda ku diidanahay waxay tahay horta ani aqoon badan oo aan u lahayn oo Yurub ka tagay ayaa waxaan tagay Nairobi markaa tagnay fasaxa u tagnay aniga gabar laashay ma garatay hadaan aan Nairobi tagay gabar wuxuu la socon jiray dhowr leeylo buu markaas inuu qabay inuu shukaansanayo ma ogi habeenkii ugu naxdinta badneed waxay ahayd gabadha sodsiin ugu imaatay marka waxay dhahday gabdhaha soo wareejinaya waan soo kaxaysay u soo socotay afka waxay naga soo galsay gaari markeedo meel yaala waxay dhahday odagayga in baraya waa Axmed Rashiid ba inta inuu naga dhageysanayaan waa macquul ayadana inay wallahi naga dhageysanayso dadkii yaqaan Nairobi way yaqaaniin gabadha waa yaabay waxaan anagii horta koomaaba gal Axmed Rashiid kala sheey dhigta kama kala jirma kana haa isagii ma fahantay marka horta Axmed Rashiid ninkii yaqaana indiis qofka soo arkaan soo arkay ma fahantay aniga horta hadaa habeenka dhiman ba alxamdulillah rabbil caalamiin ma fahantay يعني سا أحبصودا إلهي بقى ولا حبصودا لكن أوكي أنا الله إسكب بقى ما حبط معناها ما هو كوسمية مساعدهم بعد بقى ما يا because قف أديك لقى بقى جري أو أديك داون جرت أو تيفية دي أو ورك أدون كداون جرتي هدي متقارن قف أو ولا تني ما كوسو راعي قبل متقابرت يعني شيء ليلة لها نيروبي dadku jooga way yaqaanin soo noo soo waday ninkaygu waa iska soo jirta naagu inuu qaba anuu iqaba runtii wax macquul ah la noqon way maal dumarkiisu way badnaayeen haye leeylo qofkii yaqaana runtii aniga waa yaabay gabadh kale ila socoto laashii ay horta tartiib anaga gaari kala ka raacna waxaan ku dhahnay waa ku soo noqonayna isaguna bartay waa in qaadaya soo gala gaari buu dhahay alle ani waxaan ku dhahay telefoon beena qabsaday geesa istaagi gaari ay imaanaya isla markii toos u soo baxay horta waa ka soo u soo gooyay marka waxaan ku sheegayaa wallahi oo billaah oo talaay been kuma sheegayo horta aniga midaan ku diidanahay waxay tahay inama bilaa la dhici jiray in hawlka baawr la sheegi jiru dhamee waa maqlay laakiin mid aan la yaabay waxay tahay adduunka sharci baa ka jira diin islaam qof ku dhashay kasta uu ogyahay qofka markuu wax xado gacan baa laga gooyaa haduu mobile xado haduu wax xado haduu tuug yahay sharciga islaamka wuxuu qabaa dhiiga in mataqaana gacan laga gooyo xaqqa laga rogo laakiin in nafta laga jaro ma qabta diinta islaamka ma fahantay kudar hodana sharcigu sharci muslim ma aha wadanku wadan muslim ma aha taa kudar okay midaan ku sheeg Axmed waa nin muslim ah wadanku muslim ahayn asma qalaba sharciga wadanku ku shaqeynaya sharcigu shaqo kuma laha
yuhuud hadduu u shaqeeyo yuhuudka ruulka u degsan buu raacayaa ku soco horta dhegeyso waxaa jirtay inaa ila daawatini in kaleeto ma ogi maamo degan 12 street oo waxaa jirta mataqaanaa wiilkeeda waxay tir 3 jeer waa wiilka jimcaha uu ku tooganayay meesha maxaan ku dhahaa hormuudki galdi walaalo kan labadii wiilkii madowga ahaa iyo wiilkii mataqaana borin miyo hamsi madow iyo wiilka Soomaaliga ahaa oo ku dilay shaaraca gaarisa loo ku dilayay wuxuu dhahay hooyadiis waxay dhahay 3 jeer ayuu ii imaaday wiilkayga maalintii jimcaha bay ahayd de waa qofka muudka gali waa qofkee